asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah. waxaad kala socotaan Haga Media. qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah dagaal siyaasadeedkii u dhaxeeyay Axmed Karaash iyo madaxweynihiisa Saciid Dani oo hawada sii galay kadib markii Axmed Karaash uu xilka qaadis ku sameeyay wasiiradii aadka ugu dhawaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo. qaramada midoobay oo si adag uga hadashay weerarkii ka dhacay ceel baraf ee lagu laayay askar ka tirsan ciidanka Burundi. Yaasiin Farey oo lagu dhagan yahay isla markaana loogu baaqay inuu ka tago xilka taliyaha NISA maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Puntland waxay shaacisay in gacanta ay ku dhigtay shabakad arrimo xasaasi ah oo Soomaaliya qatar ku ah ka waday deegaanadeeda. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena soo booqatay nagu soo biir, subscribe le gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. like dhe muuqaalka gruubyada WhatsApp iyo Facebooka inaad kusii share garayso ayaan kaa rajeynaynaa. waa maalinimo khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha May sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena. aynu ka hormarnay Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweynihiisa Saciid Cabdullaahi Dani. xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa ayaa mar kale cirka isku shareertay xilli uu sameeyay magacaabis qaar ka mid ah golaha wasiirada. Axmed Karaash oo dagaal xoogan uu kala dhaxeeyo madaxtooyada Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xiisadii u dhaxaysay isaga iyo Saciid Dani basiin ku sii shubay kadib markii xalay saqdii dhexe uu soo saaray wareegto uu ku magacaabayo qaar ka mid ah golaha wasiirada. Axmed Karaash ayaa wasiirada uu magacaabay waxa uu ku bedelay kuwo aad ugu dhawaa Saciid Dani, isagoo aan shaacin xilka qaadistooda iyo sababta xilka looga qaadayba. waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha, maaliyadda iyo amniga oo si gaar ahaaneed uu u beegsaday. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadeynta Puntland ayaa waxa uu magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bumbo. wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Puntland ayuu u magacaabay Axmed Xaaji Ibraahim Cartan Bakiin, halka Cabdirasaaq Mire Xasan Gaawiido uu u magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland. magacaabistan ayaa waxa uu sheegay inay dhaqan galayso marka uu madaxweyne ku-xigeenka qalinka ku duugo, waana uu saxeexay. Puntland waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed iyadoo khilaafka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihiisa uu soo bilowday tan iyo markii uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxweynenimo Saciid Cabdullaahi Dani oo iminka u ordaya inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Saciid Dani markii uu u soo baqoolayay dhinaca magaalada Muqdisho wuxuu horey u sii watay saraakiil ciidan oo muhiim ah iyo gudoomiyihii golaha wakiilada Puntland, taasi oo loo arkay inuu u arkayay Saciid Dani haddii shakhsiyaadkaas gacanta uu ku hayo in mooshin aan laga keeni karin. sidoo kale Axmed Karaash iyo Saciid Dani ayaa isku khilaafay in si kumeel gaar ah Axmed Karaash xilka uu ugu sii wareejiyo inta ololaha doorashada uu ku guda jiro. hase ahaatee Dani ayaa diiday. taageerayaasha labada dhinac ayaa waxa ay isku weerarayaan baraha bulshada, iyadoo dhinacba dhinaca kale uu sheeganayo in sharciyada iyaga xaggooda ay jirto. dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo warar kala duwan laga helayo. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iskahorimaad maanta ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, kaasi oo sababay khasaaraha naf iyo maalba. israsaaseynta oo u dhaxaysay askar ka wada tirsan militariga Soomaaliya ayaa ka dhacday xaafadda Tarabuushka ee degmadaasi, iyadoo dadka deegaanka arrintan cabsi xoogan ay ku abuurtay. dhawaqa rasaasta oo muddo kooban socotay ayaa si xoogan looga maqlay xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmadaasi, iyadoo la sheegay in halkaas ay isku toogteen dhinacyadii dagaalamay. inta la xaqiijiyay waxaa shaqaaqadan ku dhintay 2 askari halka ay ku dhaawacmeen 2 kale oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay. warar ayaa sheegaya in askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmayba ay ku dirareen dhul halkaas ku yaala isla markaana ay yihiin kuwa qaraabo ah. sida warbaahinta ay ogaadeen, dagaalkan waxa uu yimid kadib markii in muddo ah la xalin waayay dhulkaas la isku haystay, isla markaana markii dambe gacan ka hadal ay sheekadu gaartay. magaalada Muqdisho dhawaan hanba aad waxa ugu sii badanayay muranada xagga dhulka oo khasaaro nafeed keenaya.
qaramada midoobay ayaa si adag uga hadashay weerarkii ka dhacay ceel baraf iyagoo ka codsaday beesha caalamka in la tayeeyo ciidamada howlgalka ATMIS si ay uga awood roonaadaan ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa si adag looga hadlay weerar ay waaberigii Talaadadii kooxda Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka ceel baraf oo dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeellana hoostaga. Antonio Guterres wuxuu marka hore si kulul u cambaareeyay weerarkaasi oo lagu laayay askar badan oo ka tirsaneed ciidanka Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS. sidoo kale wuxuu tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo shacabka reer Burundi wuxuuna xogayaha sidoo kale caafimaad degdeg u rajeeyay askarta dhaawacantay. xogayaha guud waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska dadkii lagu laayay sidoo kale wuxuu tacsi u diray dowladda iyo shacabka Burundi wuxuu u rajeeyay caafimaad degdeg inta ku dhaawacantay weerarkaas ayaa lagu yiri war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka xogayaha Stephen Dujarric. waxa uu intaasi sii raaciyay xogayaha guud waxa uu bogaadinayaa dhammaan ciidamada ATMIS wuxuuna si qoto dheer ugu mahadcelinayaa adeegooda iyo sida ay uga go'an tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. ugu dambeyn Antonio Guterres ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay kordhiso taageerada ay siiso howlgalka ATMIS ex AMISOM si looga adkaado dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab. weerarka lagu qaaday ceel baraf wuxuu mid ka mid ah weeraradii ugu bahalsanaa ee dhiiga badan uu ku daatay oo ay fuliyeen ururka Al-Shabaab dhawaanahan. Yaasiin Farey oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhagan yahay sharciyanna waxaa lagu haystaa in weli uusan ka tanaasulin xilkii taliyaha NISA. taliyihii hore ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa ka soo dhex muuqday dhowaan shir uu isugu yeeray saraakiisha ciidamada gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka iyo habraacyadiisa waxaa la ogol yahay qofka mar hadduu xildhibaan noqdo inuu isaga tago dhammaan jagooyinka kale ee dowladda uu ka hayay marka laga reebo jagada wasiirnimo oo uu haysan karo. waxaana lagu eedeeyay Yaasiin Farey in arrintaasi uu ka dhaga furaystay. mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in sharciyadii dalka lagu tumanayo haddii aqoon aysan u lahayn Yaasiin Farey iyo asxaabtiisa sharciga dalka xitaa haddii ay ka dhaga adeegaan waxay jab ku tahay qarannimada Soomaaliya ayuu yiri mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo arrintan ka hadlayay. waxaana sidoo kale uu tilmaamay in xilligan in shuruucda dalka in la ilaaliyo qof walba waajib ay ka saaran tahay laakiin wax laga xumaado ay tahay in aysan muuqan haba yaraatee xilligan ilaalinta sharciga oo 5 sano aynu ka soo gudubnay lagu eedeynayay madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday in isaga hormuud u ahaa jabinta sharciga. Puntland waxay shaacisay in gacanta ay ku dhigtay shabakad halis ah oo deegaanadeeda ka howlgalaysay. dowlad goboleedka Puntland waxa ay ku dhawaaqeen inay qabteen shabakad ka dhoofin jirtay dalka dhirta ama geedaha dalka ka baxa qaar kuwaasi oo laga iibiyo qaar ka mid ah dalalka shisheeye isla markaana waxaa laga soo ururinayay geedahan Puntland, Galmudug, Somaliland iyo dhulka dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. agaasimaha wasaaradda deegaanka Puntland Cabdicasiis Cilmi Nuur oo waraysi siiyay TV-ga SBC ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Tanzania kaasi oo ku eedeysan mashruuca dhoofinta dhirta Soomaaliya. agaasimaha ayaa sheegay in ninkan ay hayaan isla markaana uu yahay nin ka dambeeyay maskax walba oo lagu jarayay guud ahaan geedahaas muhiimka u ah dalka iyo dadka isla markaana baaritaan dheeraad ah ay ku hayaan. sidoo kale agaasime Cabdicasiis Cilmi ayaa sheegay in kiiskan ay soo galeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland kadib baaritaan dheer oo la sameeyay. toddobaadka dambena uu sheegay in ninkan iyo raggii la shaqeynayay maxkamad la soo taagi doono oo cadaaladda ay wajihi doonaan. ninka la qabtay ayaa mar isku dayay in uu xabsiga ka baxsado sida uu sheegay agaasimuhu balse ciidamada ammaanka waxay ku guuleysteen inay qabtaan iyagoo aan waxba gaarsiinin. wuxuu ahaa nin lacag tiro badan wata oo hawshan aad u caadaystay lana saaxiibay ciidamada qaar iyo mas'uuliyiin dowladeed ayuu yiri agaasimahan wasaaradda deegaanka ka tirsan. waxaana sidoo kale uu sheegay in xog ay ku heleen in shixnad kartoomaysan
oo dhir ah uu dalka ka bixin jiray islamarkaana hadda uu isku dayay in mar kale uu ka bixiyo balse waxaa lagu qabtay Qardho ayuu yiri agaasimaha wasaaradda deegaanka Puntland waxaana arrintan walaac cusub ka muujiyay guud ahaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ku baaqay in indho gaar ah loo yeesho xaalufinta dhirta qaaliga ah ee dalkeena oo laga mashquulay ilaalintooda. guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka Haga Media ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanidin.